inaan jacayl u qaaday ama aan jacayl weyn u qabo xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun xildhibaanka golaha wakiilada ee Soomaaliland. gabar uu adeer ugu aadan yahay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa jacayl waali ah u qaaday xildhibaan Barkhad Batuun oo ka tirsan golaha wakiilada maamulka Soomaaliland. gabadhan oo lagu magacaabo Aamine Axmed Yuusuf oo loo yaqaano Aamine Jacayl ayaa gobolka Togdheer warbaahinta kula hadashay waxa ayna sheegtay in jacayl baaxadiisa la qiyaasi karin ay u qaaday xildhibaan Barkhad Batuun oo ka tirsan golaha wakiilada maamulka Soomaaliland isla markaana ka soo jeeda beelaha la eebsooco ama beesha Gabooye. gabadhan waxa ay sheegtay in ay aad u baadigoobayso isla markaana ay ku kalsoon tahay qadarta Alle iyo waliba sida ay ugu hamuun qabto in mar uun ay noqoto xaaska xildhibaan Barkhad Batuun ayaa waxa ay sheegtay in aad uga heshay ayna rajaynayso inuu ka aqbalo go'aankeeda ku aadan in hal meel ku wada noolaadaan isla markaana ay isguursadaan. Aamine Axmed Yuusuf oo ka mid ah hal-abuurada ku dhaqan ee maamulka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ayaa waxa ay fariin u dirtay xildhibaan Barkhad Batuun oo ku aadan inuu ka aqbalo jacaylka baaxadiisa aan la qiyaasi karin ay u qaaday. gabadhan waxa ay sheegtay in ay ka heshay Barkhad Batuun sababaha ugu weyn ay uga heshan ay tahay inuu codkar yahay isla markaana aftahan yahay ragga dhaadheerna ay ka hesho ayna ku tilmaamtay in xildhibaan Barkhad Batuun uu yahay shakhsi dheer. waxa ay sheegtay isla markaana ay hoosta ka xariiqday waqtigii ugu dambeeyay oo ay sida dhabta u jeclaatay in ay ahayd markii xildhibaan Barkhad Batuun uu dood la galay mid ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee maamulka Soomaaliland ayna tilmaamtay gabadhan in xildhibaanka uu ka adkaaday xisaabtaasi siyaasadeed ee maamulka Soomaaliland. xildhibaan Barkhad Batuun inuu yahay codkar aftahan yahay ay gabadhan ku jeclaatay iyaduna maadaama ay tahay gabar hal-abuurada ayaa waxa ay tix amaana ku cabirtay dareenka baaxadiisa aan la qiyaasi karin ay u qaaday xildhibaan Barkhad Batuun oo ka tirsan golaha wakiilada maamulka Soomaaliland kana soo jeeda beelaha la eebsooco ee degta ee maamulka Soomaaliland ama beesha Gabooye. gabadhan waxa ay sheegtay inay aad u baadigoobayso isla markaana ay baadigoobteeda ay ka caawiyeen rag saxafiyiin ah. waxa ay hoosta ka xariiqday inay aad ugu mahadcelinayso mid ka mid ah wariyaasha ku dhaqan deegaanada maamulka Soomaaliland ee uu ka caawiyay in uu ku wareejiyo ama uu siiyo WhatsApp numberkiisa isla markaana ay fariin dheer ugu dirtay ilaa iyo haddana aysan jawaab ka helin. waa sida ay sheegtay gabadhan laakiin iyadu ay hoosta ka xariiqday inay ku qanacsan tahay wax waliba oo go'aan ah ee ka soo baxa xildhibaan Barkhad Batuun ee ku aadan jacaylka baaxadiisa aan la qiyaasi karin waa ay gabadhan u bandhigtay in uu ka aqbalay waliba in uu ka biyo diidaba. haddaba xildhibaan Barkhad Batuun iyo sheekadiisa maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsatay wixii ka dambeeyay markii xildhibaan Barkhad Batuun uu jawaabay hadal ka soo baxay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. wasiirada Khadija Maxamed Diiriye ayaa khilaaf adag la galay xildhibaan Barkhad Batuun ee ku aadan wixii ka dambeeyay markii xildhibaanka uu jawaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Khadija iyo waliba Barkhad Batuun ayaa qabiil ahaan dad aad isugu dhow isla markaana Khadija markii hore waxay aad ugu hamuun qabtay inuu soo baxo xildhibaan Barkhad Batuun balamo badan oo ay u qaadana ay dhawaan sheegtay inay kaga baxday. inkastoo Marwa Khadija loo soo jawaabay maamo kale oo ku sugan magaalada Hargeysa ay jawaab ka bixisay hadalkii Khadija ay tiri wax waliba oo Khadija ay u ballan qaaday xildhibaan Barkhad Batuun aniga ayaa bixinaya waa ayna bixisay sida warbaahinta lagu arkay ama lagu faafiyay $20,000 Mareykanka oo Khadija ay ballan qaaday ay ka laabatay isla markaana maamo kale oo ku sugan magaalada Hargeysana ay bixisay. haddaba markii wixii intaasi ka dambeeyay gabadhan waxa ay sheegtay in Barkhad uu yahay geesi mudan in taalo loo dhiso isla markaana uu yahay nin u qalma in nolosha la wadaago wax walibana loo horo. bal aynu wada daawano sida gabadhan ay uga sheekeynayso jacaylka baaxadiisa aan la qiyaasi karin ay u qaaday xildhibaan Barkhad Batuun oo ka tirsan golaha wakiilada maamulka Soomaaliland. sawiraanta Barkhad Batuun waa inta kaliya tay wehelka habeenkan ku seexdo subaxan ku soo tooso saaka subax wax kale ma eego sawiradiisa sanadka la noolahay waa ku noolahayba wehelka aan ka dhigtaba. Aamine Axmed Yuusuf oo ku magac dheer Aamine Jacayl oo ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada Hargeysa hal abuurkana ku leh ayaa waxa ay jacayl waali ah u qaaday xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun. gabadhan
oo si geesinimo leh u hadlaysa ayaa waxa ay si bareer ah warbaahinta horteed ugu sheegtay in ay si dhab ah u jeceshahay Barkad Jaamac Batuun. Waxa ay ka hadlaysaa astaamahan keenay in ay jeclaato xildhibaankan geyga Soomaalida caanka ka ah. Waa kan hadalkeeda. waxaan ahay gabadh hal abuura kuna nool gobolkan Togdheer. maxay heetay maanta waxaan jeclaystay warbaahinta inaan la wadaago inaan jacayl u qaaday ama aan jacayl weyn u qabo xildhibaan Barkad Jaamac Batuun, xildhibaanka golaha wakiilada ee Somaliland. waxaan ku jeclaaday sida runtii maxay heetay astaamihii aan ragga ku xulan lahaay oo dhan ayuu ninkaasi leeyahay. maxay heetay horta markaa nin dheer oo qurux badan ma sha Allah oo waxaan ku leeyahay nimanka dheer oo dhan baan ka helay oo jecelahay. maxay heetay marka labaad waxaan ku jeclaaday in hawlkarnimadiisa, marka saddexaad aftahankiisa oo aan hadal ninka laga helin. marka jacaylkaan qoom soo koobi karo waan leeyahay maanta. sidoo kale Aamina Jacayl oo wax laga weydiiyay waqtiga ay isku aragtay in ay jacayl dhab ah u qaaday ayaa waxa ay sheegtay in ay ahayd markii ay dood wada galeen isaga iyo xisbiga kulmiye kadibna ay ka heshay hadalkiisa iyo sida uu u doodayo. Barkad Jaamac Batuun waxaan jacaylka weyn u qaaday maalintuu dooda wada galeen kulmiye afayeenka xisbiga kulmiye. walaal Facebook maxay heetay wax jawaaba iga soo siinin. maxay heetay in wariyaasha ka hawlgala in Hargeysa ayaa wataabkiisa ii soo sheegay. maxay heetay wax alla wuxuu ii sabkaan aan jawaab oo maanta ka hayaa ma jiro. markaa waa sida walaal waxaan walaalkan u marinayaa maxay heetay horta jacaylku waa wax jira, waa ka adduunkana ku soo dhaqan yahay kuna dhisan yahay. maxay heetay waa ogtahay oo dad badan baa jacayl u dhintay boodheer iyo malaade taariikhda way ku qoran yihiin Leyla iyo Qays iyo. maxay heetay markaa waxaan lahaday walaal waxaan ku leeyahay intaan xabaasha la qaadin walaal bal la soo xidho ila soo hadalo ii soo jawaab. walaal waxaan leeyahay in WhatsApp iyo Facebook ba in badan baan kala hadlay ma fariin uga diray ama cod baa uga duubay. markaa waxaan leeyahay walaalo duubeeg fariimaho haddaad maqlaysid ma yarkaysid walaal ii soo jawaab ayaan ku leeyahay fariimaha ba iga soo jawaab. walaal markaa waxaan ku leeyahay Jamaal Caafiyo waxaan ku leeyahay sawiraanta Barkad Batuun waa inta kaliya igu helka habeenkan ku seexdo subaxaan ku soo tooso saaka subax wax kale ma eego sawiradiisa sanimka la noolahay waa ku noolahay ba aan helka aan ka dhigtaba. marka waxaan leeyahay walaal jacaylka ay ku dhacay horta jacayl hore ima soo marin bargo jacaylku wax jira maan mood jirin laakiin jacaylkiisa daraadii walaalo dhaawac buu ii geystay aan tirin karaynin. waxaan ku leeyahay walaal inanka lama sheekaysan karo, walaal nin kale lama hadli karo. waxaan leeyahay walaal beesh wixii warbaahinaya intii u gudbay intii aragtaba intii isku dhow yihiin baan inanka la ila hadlo sida ugu dhaqsiya badan la war kale gaarsi hadduu ii soo jawaabi waayo. aad iyo aad baan walaal taa ugu leeyahay. markaa waxaan leeyahay xildhibaankii qaranka xilka weyn u hayow kalgacayl xadayba xiisa iigu kaaladhay meen ledin xalayto safrad baan xabeebtay xagaan ka helaa xabiib. Jamaal Caafiyo waxaan rajaynayaa walaalo si weyn u rajaynayaa maxay tahay muuqaalkaygan inuu gaadho xildhibaan ii soo jawaab ayaan ku leeyahay fariimaha ba iga soo jawaab. walaal markaa waxaan ku leeyahay Jamaal Caafiyo waxaan ku leeyahay sawiraanta Barkad Batuun waa inta kaliya igu helka habeenkan ku seexdo subaxaan ku soo tooso saaka subax wax kale ma eego sawiradiisa sanimka la noolahay waa ku noolahay ba aan helka aan ka dhigtaba. markaa waxaan leeyahay walaal jacaylka ay ku dhacay horta jacayl hore ima soo marin bargo jacaylku wax jira maan mood jirin laakiin jacaylkiisa daraadii walaalo dhaawac buu ii geystay aan tirin karaynin. waxaan ku leeyahay walaal inanka lama sheekaysan karo, walaal nin kale lama hadli karo. waxaan leeyahay walaal beesh wixii warbaahinaya intii u gudbay intii aragtaba intii isku dhow yihiin baan inanka la ila hadlo sida ugu dhaqsiya badan la war kale gaarsi hadduu ii soo jawaabi waayo. aad iyo aad baan walaal taa ugu leeyahay. markaa waxaan leeyahay xildhibaankii qaranka xilka weyn u hayow kalgacayl xadayba xiisa iigu kaaladhay meen ledin xalayto safrad baan xabeebtay xagaan ka helaa xabiib. Jamaal Caafiyo waxaan rajaynayaa walaalo si weyn u rajaynayaa maxay tahay muuqaalkaygan inuu gaadho xildhibaan. saaxiibayaal waa daawateen haddii aad inagu cusubtiina subscribe dhaha gambaleelkana furta si ay idiin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno. haddii aad horey inoola joogteenna madaxaad inoo saarantihiin dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale. haddii aad inoo haysaana qaybta commentiga inoogu reeb waan idin aqrin doonaa. mar kastaba mudnaanta idinka ayaa iska leh meesha guduudan madow ka dhiga si aad u noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ee daawada warbixinada xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno.